إلى لسان إذن ماصن وبلابنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله. إلهي بقى ما هذا نسكله الله وحوي مالين كان وحوي قيمها بدن أينو هل كان يسوكها كياني إلهي بقى وحوي ما هذا نسكله أنت اسكدب ولا ليال ما أنت ومالين وين ومالين دن أو وحوي صومالي وحوي مالو أي جوكتو أي هل كان وحوي إنها يكون إيجيسو مالين تن ومالين تاريخي dadka magaaladan ku nool maanta waxa weeye waxay muujinayaan dareenkooda iyo waxa weeye sida ay markaa yahuudda waxa weeye gumaysiga ay uga soo horjeedaan inay halkan ku muujiyaan. marka waxa weeye dhammaan dadka ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada mudaaharaadkan ama banaanbaxani waxa weeye waxa soo qaban qaabiyay golaha sare golaha waxa weeye ittihaadu majaalis culamaa Soomaal ama waxa weeye golaha midowga golayaasha culamaa diinka Soomaaliyeed ayaa waxa weeye banaanbaxani waxa weeye soo qaban qaabiyay. marka qof walba ka soo qayb galay waqtigiisa qaaliga uu soo horay waan u mahad celinaynaa dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. walaalayaal وقتها ayaan ka faa'iideysanaynaa fadlan nidaamkii ilaaliya banaanbaxani waxa weeye waxaa looga horjeedaa gumaystaha yahuudda oo ku soo xadgudbay midnimada iyo qarannimada iyo waxa weeye xasiloonida Soomaaliya. yahuud waxa weeye waxay tahay ilaahay baa qur-aanka ku tilmaamay waa laga dhacsan yahay dadka Soomaalida waxa weeye yahuud nacayka qofka marka uu dhasho ayuuba u bilaabmaya walageena waxa weeye yahuud waa nacbanayn haddana waa nacaynaa maxaa yeelay xadgudubka waxa weeye waxa ay bariga dhexe ay ka wadaan ayaa dhibaato waxa weeye muslimka ugu filan. geeska Afrika waxa weeye ma xamili karo mushkilad kale. yahuudda waxa weeye waa laga dhacsan yahay waxay tahay waxay soo kordhinayaan ma jirto waaba laga cuudi bilaystaaba. qofka muslimka waxa weeye maalintii 5 jeer buu tukadaa salaada marka la tukanayo waxa ku jira غير المغضوب عليهم ولا الضالين وهو يهود غير المغضوب عليهم وهو يهود way. marka qof laga cuudi bilaysanayo in maanta dad Soomaaliyeed waxa weeye inay dhulkooda ay ku soo dhaweeyaan oo ay marxabeeyaan oo ay dhunkadaan waxa weeye waxay sharaf dhacba waxay ku tahay qarannimada Soomaaliya. waxay meel dhac waxay ku tahay midnimada Soomaaliya. maanta waxa loo socdo yahuud waxa weeye halkan ay u soo damaacisay waxa weeye in sida waxa weeye wadankan khayraadkiisa in la qaato in dadka waxa weeye caqiidadooda la fasaadiyo. waxa Soomaaliya ma aqbalayso mana yeelayso wadankan in wadamo kale waxa weeye muslim ama jaar waxa weeye in laga weeraro. dad Falastiiniyiin oo waxba aan galabsan ayaa la doonayaa maamulka Soomaaliland waxa weeye wuxuu ku bedeshay 2 milyan oo waxa weeye qof in la soo barakiciyo dhulkaasi waxa weeye laga soo saaro mana yeelayno insha Allah ta'ala. ayadaha quraanka ayaan ku bilaabanaynaa. waxaan u yeerayaa Sheekh Shaafici, Sheekh Sayid, Sheekh Aba Ali, Sheekh Ali Maye falyatafaddal majziyan ma'jura. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. صدق الله العظيم.
صدق الله العظيم. الله إنه أنفع ولا الآيات طبعا وحوي ما أنت موقف كلا تاجي هي آيات وحوي ولكن وآخرية أي عبريان وحوي مركا آياتها سي قرآن كريم كهدية إنه هالكاسي هيجود ابنه كلمة لها وحوي مناسب كقوة فريتان ك بنان بحني وحوي لوجسه رجيله قميستها يهودا وحا كلمة أول رئيسة بنان بحني وحوي إنه ده فرية شيخنا شيخ آذن معلن أبوكر شيخ سوفياري قدوميها مدو قولياش علماء الصوماليات فليتفضل مجزيا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. صدق الله العظيم. وقال عز من قائل عليم ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. إخوة الأعزاء إلهي بان أمهد علينا نو سورة قليل كلن كان تاريخي شعب كصوماليات قلبية كوين وعلماء الصوماليات ساكو أصبحان إلي موجيان شعور كؤادا واقع مانتا أن تاغانا هي قضية مانتا أن لح جوغنو دقالك قاون أو يهود أي دالك إنكو سوقادي dadka Soomaaliyeed ee muslimiinta ah oo xogogaalku waahna inay xusuusiyaan cadaawada yuhuudeed inay tahay cadaawad joogto ah cadaawo aan meelna lagu reebin cadaawad diinkeena iyo aakhiradeena iyo adduunyadeennaba saamaynaysa ilaa ilaahay uu ka gaarsiiyey inaysan raalli noqonayn ilaa ay dadka ka yahuudeeyaan lama aqbali karno waxay doonaysa yahuud oo aan ognahayna ma aqbalayno mana aqbali karno waa diidnay damaca yahuudeed inaan dhahno dadka Soomaaliyeed kelimada arrintaa ku aadan ku wajahno aniga kelimadeedu waa furitaan inaan furo kelimada majliska iyo maqaamka culimada waaweyn oo joogtaa kelimaadka mudan dhihi doona waxaan rabaa inaan tawjiih yar bixiyo dadka isu soo baxay waa culimadii acyaanteedii waaye goobta aan joogna iyo waaqica iyadoo ka turjumaya waxaa goobta joogaya waa culimadii acyaanta ahayd ee bulshada Soomaaliyeed ay wada taqiinay iyo intii markaa la joogto oo hore u soo raacday waxaad ogtihiin bayaan wuxuu daba socdaa kulankeennan iyo banbaxeennan maanta bayaankii culimada hore u soo saartay oo aad degeysanayseen wada maqlayseen oo ay kaga turjumayeen diinkeena iyo dadnimadeena ayagoo culimada Soomaaliyeed hore u caddeeyey yahuudiya cadowtinimadeeda iyo mowqifka aan ka taagannahay oo aanan weligeed meel looga laabtaba aysan jirin sidoo kale culimadu waxay caddeeyeen bayaankeenna hore ku caddayd midnimada Soomaaliyeed ummadda inay tahay muqadas khad axmara inay tahay ku khaarij ka yimid iyo gudaha ka yimid inaanan ka aqbalaynin oo aan yadan waaxidan ka nahay inay caddeeyaan maantana culimmadu intaasay u soo banbaxeen waxaan rabnaa gabdhaha Soomaaliyeed ee muxsinaadka ah ee muslimaadka ee qaanitaadka ee xaafidaadka ah ee culimmada soo raacay oo damiirkoodu siiyey inay wax ka muujiyaan waxaan rabnaa inay dhinac u istaagaan anagoo ilaalinayna ولكن يقول كوي كان دين عسلي سايا وهم
waxaad xusuusantihiin bayaanka markay culummada soo saartay kadib tallaabadii xigtay waxay qaadeen culummada ayagoo ka ambaqaadayo baaqii wasaaraddu ay soo jeedisay in masaajidii oo dhan culummadu ay ka hadashay mawduuca yahuud iyo wuxuu yahay iyo waxa ku dhex qarsoon ay culummadu ka hadleen aadna ogsoon tihiin culummada soomaaliyeed qaarkoodna inay dhibaatooyin ku muteysteen maantana culummadu waxay u soo baxday markii shalay ay dalkeenna ka dhacday in cadowgii akbarka ahaa ee yahuudeed uu dhulkayaga taakadiisa soo dhex istaagay culummada soomaaliyeed inay bannaanka u soo baxday qaadatay bannaanbax midka ka weyn oo aan hadda iclaaminayno maadaama uu midkan ahaa emergency acyaantii culummadu inay mowqifkeeda caddaysay maanta u soo baxday bayaankii majaalista culummada ay diyaarisay in halkaa laga sheego kadibna culummadu waxay tawjiihin doonaan siday u socon doonaan khadawaadka oo jumcaha u soo sokeeya laga bilaabi doono nadawaadka la qaban doono iyo hawsha culummada u taallay culummadu u iclaamin doonaan akhyaarta iga mudan halkan kelimaadkaas ka dhihi doonta oo ugu soo horeeyo sheikheena sheekh bashiir sheekh axmed salaad iyo akhyaarta daba taagan waxaan u daynayaa xiriiriyaha waa noo furan yahay kelimaadkii aan halkan culummada ugu talagalnay si guud anoo ku hadlaya magaca majliskaan u mahad celinayaa culummada waaweyn ee cayaanta ah ee majaalistoodii ka soo baxayey maraakistoodii ee u soo baxay inay damiirkooda dadka soomaaliyeed la wadaagaan waxaan u mahad celinayaa dalabatulcilmiga maanta ka soo qayb galay oo nala soo qaatay waxaan u mahad celinayaa bahda warbaahinta oo si muuqata uga soo qayb qaadatay qof walibana waxaan dareensiinaynaa inay tahay waajib diini ah oo waddani ah inaan ka qayb qaadanno la dagaalanka qaawan oo ay yuhuudda dalkeenna ku soo qaaday mar raba inaan ku dheeraado mahad celintaas iyo kelimada inaan furaan u soo kacay aad iyo aadaan idinkaga mahad celinayaa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد إلهي سبحانه وتعالى يا مهد اسكالي هذا لكوبي كريم ينفذ ذي كل كان قيمها يقايها له وحمانت أنا أسكون من أمورك صابصان خلاف سياسية والصومال كان حيا معها وحن أسكون بدين أن جدنا طمع يهود أي درك أنا كيالتي أي دون يسوع لبعتني كودي فلسطين إني أصر تجي معركتي دركنا يهود وضد الله سبحانه وتعالى وقرآن سجل شكيي ووحي أي كفر سبحانه وتعالى على ودى أيها يا المسلمين سبحانه الله شيئا إلى أنبياء إلهي ليس شرين أي إله سبحانه وتعالى marka waxaa la yaab leh qof muslima oo damac ka galahayo ama dan ka raadinaya ama rajo ka leh dadkii ambiyada ilaahay laayay dadkii ilaahay u carooday oo taariikhdooda oo dhan ay tahay inay yihiin kuwa malcuuniin ah oo loo carooday ilaahay subxaana wa taala qur-aankiisa ayuu noogu sheegay dadka muslimiinta qaarkood inay marka qaarkood khaldamayaan oo cadow ay soo dhawaysanayaan ayagoo moog ama aan ka warqabin xaqiiqada ah in qofkaanu cadowgaagu u yahay ilaahay wuxuu yidhi haa antum ulaa'i tuxibbuunahum walaa yuxibbuunakum waa kuwaasaa gaaladii waa kuwaasaa yahuuddii idinku waa jeceshihiinoo laakiin ayagu wa idin yaqaaniin idinma jecla marka dadka soomaaliyeed oo jacaylka muujinaya waxaa leenahay waxay samaynaysaan horay baa loo sheegay muslimiin khaldama oo cadowgooda ku khaldama horaa loo arki jiray ilaahay baa nooga digay odhanaya idinku masaakiin baatii waa jeclaanaysaan waa idin sirahayaan laakiin ayagu idinma jecla go-aankoodu meel buu u yaallaa inay muslimiinta gumaadeen waa garanaysaan ninka marka kumanaan laayay falastiin ah oo muslimiin ah ninka baytulmaqdis burburinaya iyo dadka muslimiinta ah inuu adiga maanta wax kuu taro shay suurtagala ma aha yahuuddu waa dowlad caalami ahaan aan boos ku lahayn siyaasaddeeda xataa gaaladii ayaa ka mudaharaadaysa oo nacaysa
oo waxay sameynayaan ku diidan markay adduunka boos ka waayeen oo waxa ay sameynayaan adduunkii ka soo jeestay ayay ka soo dooneen meelahan inay isku dhaqaan bay rabaan inay maaragtay maxaanku dalkeenna isku dhaqaan oo ceebtooda ku qariyaan bay rabaan oo dowlad caadi ah iska dhigaan waxaa leenahay waa ku fahamsannahay walaalaheenna ku khaldamana waxaa leenahay annagaa fahamsiinayna ilaahay baa na fahamsiiyey haa antum ulaa'i tuxibbuunahum walaa yuxibbuunakum waa idinkaas jecel oo ku dagmahaya laakiin ayagu idinma jecla calankiina ma dhunkanayaan tawxiidkiina ma qaadahayaan diintiina ma ay jecla nebigiina ma aaminsana ayaga go-aankooda meel buu u yaallaa marka idinkuna waxaa la leeyahay doqon ha noqonina go-aankiina qaata waxaan sheegaynaa ka caddeeyaynaa meeshaan ummadda soomaaliya oo muslimka ah wixii dhexdeeda weeye ayagaa ka heshiinaya ayagaa ka doodahaya laakiin in meel fog la aado oo cadow yahuuda la soo dhowaysto ayadoo loo malaynayo inay mushkilo kaa xallinayo baahida ay u qabaan yahuuddu maantay inay dowlado helaan inay dad helaan ayaa ka badan midda annagu u qabno waxaa loo baahan yahay in la fahmo waxa maanta la sameeyey mucaamalo maaha dad baa jira odhanaya nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu madiino joogay nin yahuudiya buu la mucaamulay nebigu sala allahu calayhi wasalam ghulaam yahuudiya ayaa jira oo u adeegi jiray taasi mucaamalo shaksi ah wey laakiin dowlad dhisan oo waxlaynaysa oo wax baabi'inaysa oo xataa gaaladii kale ay diideen inaad mucaamalo la yeelatid arrin kale wey marka mucaamalada shaksiga ah iyo mucaamalada dowladuhu waa kala gedisan tahay tan kale mucaamaladan xataa cilaaqaad diblomaasi ah ma aha safiiro la isdhaafsanaya ma aha waxaa weeye waxa loo yaqaano abraham accords oo macnaheedu tahay in yahuuddu waxa ay wadaan oo ay ka wadaan falastiin in loo sharciyeeyo markaa yahuudu ictiraaftid waxa ay ictiraaftay inay dowlad yihiin waxa ay ictiraaftay dhulka ay haystaan inay leeyihiin baa ictiraaftay waxa ay ictiraaftay dadka ay leynayaan inay ku saxan yihiin baa ictiraaftay marka waxaana mucaamalo maaha xataa cilaaqa diblomaasi ah maaha mabda'a yahuudda oo aad taageeraysid ayuu ku dhammaanayaa marka waa ka digaynaa haddii lagu simbirraxday oo marka hore maxaanku dhaha dadka la siray yaan lagu sirmin ilaahay subxaana wa tacaala amarkiisa aan qaadanno yahuudda aan iska ilaalinno annagoo dhexdeenna kuwii midooba oo isjeclaada allaha naga dhigo haadaa wabillaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu كلوا هذا هي قصة حو كان مديدو نعرف واحد قوي أو دعي سوق هذا الله أكبر مسلم الإسلام كان كوليس يهود هذا عضو يهود كالكال هذا عضو سومالي لان وقبل كم إذا سومالي لان وصوماليا هوستايا نين isaga aan اعتراف haysan haduu اعتراف ku siiyo gawar waxyaabaha lagu qoslo Soomaaliya iyaga aan اعتراف haysan maxay اعتراafayaan balaayadin اعتراaf wax اعتراafaya ma jiro aad markan gabay baan gelinayna kalimaadka xogaa gabayga aan ku yara basanaynaa لاشن ابتدوح مرتدوح عفوا لاشن كان كسر وينيا بالقلي جيسان دقيسن ميكروفون أكو قبتنا كسر سكوتر تمام مدعي سوق هذا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد وحواي ما أنت وحنا هرم مجران وحي ورا وحاوجك وحي ورا يا وحي علمي يا وحي وعد يا علماء وجوكته أنا هالكا وحنا صاخرين السؤال هنا ويديو وعليه سومالان هل سؤاله كلنا ويديو يهودا بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم soomaalidu ma kala maaranto waa mir iyo geed soomaalidu ma kala maaranto oo waa mir iyo geede adigoo midnimo diidan oo muran la soo taagan mascilaan la oo mool ku jira midigta howdaysan mascilaan la oo mool ku jira midigta howdaysan waxa aniga iga maajiyay oo maanka gali waayay malaayiin qofood oo muslima nimankii meeyteeyay oo midigta dhiig kula jiro weli ka soo meeyran iyo madaxda Soomaaliland wixii mataaneeyay Allahu akbar Allahu akbar iyo madaxda Soomaaliland wixii mataaneeyay iyo madaxda Soomaaliland wixii mataaneeyay dadna waxa uu maangaaban oo mulka sii liita nin magtiisi qadal looga dhigay geeridana moog oo sida mayeeraankii cuna malafkii loo taago war waxaad cunaysaan malakamayda ka dambeeya waxaad u xilahaysaan malakamayda ka dambeeya Allahu akbar Allahu akbar min diyaha afaysan iyo mixnada lala garguuraayo masiibada iyo waabayada mawdku daba yaallo mujaamalada lala damacsan yahay magaca diinteenna maqaalida hilbaha lagu raro moolka lagu tuuray marmaroog inaad ugu dhacdaan ma ogolaa doono Soomaaliland marmaroog inaad ugu dhacdaan ma ogolaa doono marmaroog inaad ugu dhacdaan ma ogolaa doono shanti kala maqneedaan lahay meel isugu keene shanti kala maqneedaan lahay meel isugu keene midnimada inaad dhaawacdaan ma ogolaa doono midnimada inaad dhaawacdaan ma ogolaa doono muqdisho iyo hargeysa ka haray magacii weynaaye mar labaad inaad kala gurtaan ma ogolaa doono mar labaad inaad kala gurtaan ma ogolaa doono adigoo muslima oo yaqaan maxabadii diinta in majuus wax kuu meyriyana ma ogolaa doono ma ogolaa doono in majuus wax kuu meyriyana ma ogolaa doono Soomaalidu ma kala maaranto waa mir iyo geede majuusiga maryaha soo dhigtay midda celi waayay waa inuu wuxuu maagan yahay ma yatiraahdiin waa inuu wuxuu maagan yahay ma yatiraahdiin waa inaad wuxuu maagan yahay ma yatiraahdiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh intaan ma wada qaadi kartaa wax la qabo طبعا قبل وحوها وحماصة يوحوي ودنيات بدن أي كم وقته يهود محاتر هذين هذا عضو صومالي إسكاله صومالي باله عيد كلام مرهن صومالي أنا ويمذوب إن شاء الله تعالى ودن كانوا إسراعية dhibaatada iyo waxa weeye mashaakilka taaganna Allah in laga dulqaado inaga waxa weeye wixii dhexdeena was xalin karnaa laakiin yahuud waxa weeye meel ay Soomaali ka soo gasho malaha jaanis yar bay raadinayeen ay Soomaaliya waxa weeye dhulkeeda ay ku soo galaan waa kan maanta waxa weeye wasiirkoodii shalay hadda u dambeysay waxa weeye Hargeysa ka dagay wax kale oo ka daran baa soo socda walaalayaal aan midowno wadankeena waxa weeye midnimadiisa iyo qarannimadiisa midnimo ayaa ina deeqda تفرارق وحبي نوتري ما عربت وحي كما هذا الاتحاد قوة والتفرقة ضعف مذوقة إي وذا تركة وأود كلما دتكو أي مذوان وكلما أي أود يشان وكلما وحوي أي كالتغان وكلما ضعف ويمال إلهي نوح ليه ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مركن وحنو رياه شيخنا شيخ محمود شيخ عبد الباري وهذا وضع قرن إنسان واه قدوميها وحوي قدومي كحجانك مذوقة ولياش علماء الدين كصوماليات فليتفضل مجزيا مأجورا. حق اللي وحنا حق اللي بس. أنت وحنا يا الشيخ هذا بين الدول. واجب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
halkan waxaan ka salaamaynaa jamaahiirteena Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan khaas dadka maanta soo banaan baxay oo u horkacayaan culamaa diinka Soomaaliyeed ayagoo wada socdo dhammaan jikiyeelkooda iyo maqaamaadkooda oo ay nala joogaan maanta asxaabu sajaadaadkii oo Sheekh Cabdisalaam Sheekh Shariif Sheekh Muxdiin oo ka mid yahay Sheekh Cabdirazaaq Sheekh Aadan Dheere Sheekh Jire culimo badan kale oo duruqtii dhammaanteed ay halkaan marka nala joogaan culimada kale midowga culimada Soomaaliyeedna ay u dhan yihiin anti kale oo nala joogto oo maanta naga maqanna raalli ay ka yihiin istaagaan maanta halkaan quraxdaan aan taagannahay iyo waxaan diidannahay yahuud dalkeena inay soo gasho walow taaka shifr qadri shifr taaka qadarkeeda ahaada inay soo gashaan diidannahay inay soo barakicido muslimiintii ay leeyeen oo Falastiin ahaayeen in haddana dalkeena ay u soo barakiciyaan ayaan ka soo horjeednaa waxaan damacsaneen Falastiin meeshood inaan ugu gargaarno oo ardu Falastiin aan lu xureyno oo xaq ay u leeyihiin muslimiintu taasay tamaninaayeen taasaan rabnay laakiin hadda in dalkooda laga soo barakiciyo oo dhulkaan la keeno ayagoo dhulkooda ah oo dhul muslim ah laakiin barakicintaasaan ka soo horjeednaa dadka soo barakicinayana waa dad qataaliin ah oo ay waxba u raxmanin qatalat shuyuukh qatalat al-adfal haddaam al-masaajid wa buyut Allah wal madaris wal mustashfayat dadkii saas ahaa cadaawadooda ay muuqatay inay maanta dalkeena ay qaar kamid ah meel kamid ay soo galaan wax la sugunaayo ma aha wax la rabayna ma aha waa aad iyo aad uga soo horjeednaa waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dawladaha oo nasoo garab istaagay oo caalam al-islaami ah iyo carabta u badan khaasa iyo caalam al-islaam oo dhammaantoodii Turkiya ka mid ah Sacuudi ka mid ah Masar ka mid ah dawladahaas waxaan leenahay waa mahadsantihiin jazaakumullah khayr waa waxa la isku lahaa in waxaan oo sardaanka ah oo dhir ah meel kasta ay gashaba hidgeeda rabto inay ka faafido in dalkan laga ilaaliyo muslimiinta dalkooda laga ilaaliyo alaan meeshii ka soo balaaween ayaa laga maxadin waayay meeshay ku darsadaan lagama maxadin doono waxaan u dambeyn doonaa shilaay iyo hoog iyo ba halkaana Soomaaliya u joogta oo geesiyaala ah waxaan aad iyo aad ugu taageersanahay dawladeena Soomaaliyeed oo talaabadii ugu habooneed qaaday siyaasi ahaan iyo awood ahaanba ay u soo kacday in iska difaacdo yahuud iyo damaceed oo qurxan kadaalika dawladaha kale oo garab taagana taasaan ugu mahadcelinaynaa annagana waxaan leenahay shacbi iyo xukuumo iyo culamo anaka oo isku wada duuban ma soo dhaweynayno yahuud waxaan leenahay laa marxaban bihim innahum saaru naar waa dad naar u socdo dad naar u socdana lalama saaxiibi karo lalama meel ay joogaan lama tegi karo waa dad ahlu naar ah marka naarta inay noo jiidaan aan ka baqaynaa taas waxaan ku soo horjeednaa aan leenahay laa marxaban bihim innahum saaru naar inaan ku dheeraado ma rabo culamo badan iyo khiyaar badan joogta quraxdana waa la joogaa maqsadkina wuxuu ahaa dareenkeena inaan muujino dareenkeena waa kaas mana ka heri doonno ilaa qiyaam saaca inaan yahuud oo dulmigeeda iyo cadwaankeeda muslimiinta meesha ay joogto ka aragnay in anaka aan soo dhex galaan oo dalkeena Soomaaliya ay soo dhex galaan wax raali ka nahay ma aha taasaan cabirayna halkaan aan u taaganahay wabillahi tawfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh وهذا أدوما سيهاي كلمة في هكذا وكسر الجيلين كاسوعة وفضيلة الشيخ محمود شيخ عبد الباري بدون حقيقة وحوي مدوغا قرياش على الموجودين كصوماليين مركنا ولا يا واحد يسوع ويسان شيخ عبد السلام شيخ شريف شيخ محي الدين علي وكمل علماء واوين قال أنا وحوي هجان كسرة وحوي أهل الطرق الصوفية مركا كمل شيخ آيات مركا كسر وين ناس كلمة يسوع وحوي مناسبتها وغيرها فليتفضل مزية ماجورة. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بهذه إلى يوم الدين. إخوة الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاواي صبحتان كان مانتا oo laga joogi waayay mawaadicdii iyo meelihii makaanu khayraadka daraasooyinka aan ka wadnay. waxaa waa inay maaragtaa ayna soo dhex galeen kufaartii aan ka cabsahaynay oo dad badan xataa aan dhahayna ilmihii xaggaha isaga dirinina oo ugu faatixayayna dulaynka kuu soo bax iska joog waddankaa ilaahay risqigaasiya inay haddana haddii ilmihii ka ceshanay inay haddana ayagu intana u soo galeen. muga ma ahan dadkaasu yahuuddaahu dad alxamdulilah rabbialcaalamiina dadka annaga aan saaxiib ka yeelahayno iyo dadka aan saaxiib ka yeelahaynin ilaaha noo sheegay alla subxaanahu wa tacaala. alla subxana wa tacala wuxuuna leeyahay yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa'a bacduhum wliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin. ilaahay waa subxaanahu wa tacaala waa noo diidaa, wuxuu noo diidaa inaan annaga saaxiib ka yeelanno yahuud aan saaxiib ka yeelanno. yahuud saaxiib noo naqa mayso. maxaa jira saaxiib waxaa yidhahdaa oo sadiiq la yidhaahdaa ninkii adiga farxadlaada iyo wixii kaa farxiyo isagana ku farxaayo, wixii adiga kaa tiiriyana kugula tiiraayo. laakiin ninkii tiiraanyadaada ku farxaayo dhibkaaga ku farxaayo kuu naqa maayo saaxiib, kaa saaxiib kuu naqa maayo. waana cadow. inuu cadow yahayna alla subxaanahu wa tacaala ayaa noo sheegay awna leeyahy alla subxana wa tacala latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waladiina ashrakuu. waxaa waaye u leedaad helaysaa rasuul maxamedow, waxaad ogaahaysaa yaa ashadda annaasi cadaawatan dadka cadaawa xaggeed ugu darnaasho badan liladiina aamanuu dadka adiga ku rumeeyo ku raacay, dadka xaggooda ugu cadaawada badan leh oo dadka ku raacay aanan ogolayn, dadka iimaanka qaadahay aan ogolayn, dadka diinka islaamka qaadahay aanan ogolayn alyahuuda waay waa yahuud. muga iyo waladiina ashrakuu waa ilaah ku cadafay iyo kuwa mushrikiintaaba mushrikiintiyaa lagu cadafay oo xabad ku tubaxta aan haysan ayaa ilaahay ku cadafay. muga yahuudda waxaa waaye dadkaas ilaah oo noo sheegayo ou yidhi cadaawo hadday jirto cadaawo midda ugu daran dadka mu'miniinta cadaawadooda midda ugu daran waa yahuud. annaga xabba ma naqaano wax noo cadowa iyo wax noo saaxiib aan noo ma naqaano, laakiin ilaahay na baraya subxaanahu wa tacaala. muga wixii ilaahay ou niyey saaxiiba ka dhiganina waxaa naga rabaa inaan saaxiib aanan ka dhigan. suubaan wuxuu leeyahy sallallahu alayhi wasalam laa tusaaxib ilaa mu'minan laa tusaaxib ilaa mu'minan. war haddaad saaxiibayso mu'min ruux ilaahay rasuulkiisa yaqaano maana qofkaa hala saaxibin, qofkaa hala saaxibin. muga saaxib kuu naqa maayo ruuxa xamda rabbi caalamiina ilaahay ou kuu diiday ha u qabin muga adiga muga inuu saaxib kuu naqahayo ku jeclaahayo ha u qabin. ninku jeclaahaya ma aha, annagana ma jeclaahayno. aayadda kale narada laa tajidu qowman yu'minuuna billahi walyawmi alaakhiri yuwaadduuna man xaadda allaha warasuulahu walow kaanuu aabba'ahum aw abnaa'ahum aw ikhwaatahum ilaa aakhiri alaaya. yaa ilaahay waxuu nagu ammaanahna leeh dadka aadu iimaanka waxaad ogaahaysaad arkaysaa inaynan jeclaahaynin dadka oo khilaafaayo alla khilaafaayo maanta ma aakhira diidaayo dadkaas inaanan jeclaahaynin. dadka mu'miniinta ma jeclaahayaan, aabbayaalkooday rabaan ha ahaadaan. dadkaas oo iimaanka diidaayo oo ilaahay rumeeyey rasuulka rumeeyo ma aakhiraan rumeeyayn haba ahaadaano aabbayaalkood ha ahaadaano ilmahay dhaleen lagama yaabo inay maarata dadkaas xaggood ay jeclaadaan inay jeclaadaan lagama yaabo. muga annaga ma jeclaahayno dadkaas. allahu akbar allahu akbar allahu akbar
muga waxaa waa gaar hadduu kuu soo dhowaado oo kugu sahsaado qandhadiisa kugu daaran rabyaa qandhadiisa oo kugu daaran rabyaa maana faa'iido kuuma wadiyo maxaa jira qofta kuwa saaxiibto kuwa joogto dabeecaday ay ku laqsiyaysaa dabeecaday ku laqsiyaysaa wuxuu sal lla slam almar'u calaa diini khaliilihi almar'u calaa diini khaliilihi falyandur axadukum man yukhaalil bal iska fiiri qoftaad la saaxiibaysa iska fiiri dooro qof dadnimadaada iyo xagda wanaagaaga iyo horumarkaaga ka talihaysa dooro muga annaga waa u naseexaynaa dadkaas waxaan leenahay ku ajarminnina aayadahaas qur-aankaa ku caddayhaayo inay dadkaasu saaxiib naqahaynin muga khayr allah idin siiyo waxaa waa alxamdulilah rabbi caalamiina baa dadkan soo wada baxay waa mawaadicdii iyo xertii oo ka yimideen mawdacyada calaamankooda u jeediin waa kuwaan hadda calaamankooda xataa hore u soo qaateen ay mawdacada u surnaayeen mashaa'iqdii waaweyneedna waa joogaan alxamdulilah rabbi caalamiina oo sheekh jeer sheekh cali cabdil oo ka mid yahay sheekh cabdirasaaq shaandeer oo ka mid yahay sheekh xamuud cabdilbaari oo culammada mawaadicda inkastoo meeshan xuman oo ka yahay culammada ahludurqaho mashaayikhda oo ka mid yahay iyo kulli dhammaan culammada maha joogto dayib muga waxaa waaye waxay culummadan ka soo baxshay madrasadoodii ay casharada ku akhrihaayeen waxay arkeen cajarmadaas la cajarmay haddaan hadda adigu annaga aanan ka qaylinna waa khatar cadiima maxaa dhacay waa la dimbaabayaa soomaaliya dhexdeeda waxaa soo dhex galeen inaan ka warranaa haddii aan laga warramin waxaa imaayso waxaa la yidhi geedida galbeed laga sheego guundahaa ka fiiri ma maqasheen yaa khatar waay heer xamarka waxay allahu akbar muga khatar waay haddii aadan maaragtaa mahaas geeska ay kaa soo galeen aadan ka bixin oo ku dayso waa kugu soo taaraxaya muga baaraka allahu fiikum kelimadeeda waxaan ku soo gaabsahayaa gaalada allaha naga qabto shartooda allah naga qabto saaxiib noo naqamaan danta inaan ka shaqay maayaan allahna fahamsiiyo wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu وهذا دوما سيهاي كاسوحة وها فضيلة الشيخ عبد السلام شيخ شريف شيخ محي الدين علي أو مركا كمدة وقانك علماء الدين كانوا السنة والجماعة دوما سيهاي مركا كلمات كعلماء وحيا غايبها وقتي واسكو بيهاي أبو ربيعة يا مركا نحن لنا وحلقا قبل كسر جديدة يكتبنا كلمات يريان وقوام غايبها وانا إن شاء الله qof walba kolley maanta mansabkiisa iyo magacu meeshan ku jooga ku salaamayaa dhammaanteen isku wada ducuur isku wada shucuur iyo isku wada dareen baan nahay marka altixaan gawiga insha allah kaga qayb qaadanaya anigana soomaali waa hili walaagtan iyo habiili gumaysiga haleeya marnaba kalama hiifteene isku hooyo qaraabaynu iyo habar wadaageeda ummadii hil wadaagtana marnaba kala daafay afartaastii hilaac baa hawma kaga sii halkii aan la rabay oo saxnay hilin ma qaadsii ma habeey waataana hagay weynaaye afar kalena iga hooyo hawada raacsiiye yuhuud ninka waan qataayo halan ku yiraahdo duulkii hooy weynna baa lagu hagaagay martida ku soo yirato oo lagu haleeyay hayasha maryaanta maatii wada halaagaysa inaad hoos gasho digsataa soo hanjabay ma afartaastii hilaac baa hawma kaga sii halkii aan la rabay oo saxnay hilin ma qaadsii ma habeey waataana hagay weynaaye hal kale oo muhiim ah waa mid hirtay laabteedo hankaan lahayn baa la yiri haatuf baa dhalay hankaan lahayn baa la yiri haatuf baa dhalay qabkii ku awognaa baa la yiri hogbe ku tuureen horor bay u tageen baa la yiri haatufiyeye duul ilaahay halaagaa la yiri halay u maaleene haraadigi fircoon baa la yiri hilin la qaadeene dhiigooda kuwii haaduray soo horkacayaan dunidan guri awadaysa hawada qiiqayso gantaaladu ku obtaan dalkii dawlad ka halowdo adiguna hantii toonowda hubabka qaarkiis
heshiisku gaal kula galaa waa hufiya beene ha kadsoomin hadoo bato waa lagu hadlaabaaye haddaad nila heshiisaan marnaba hoos ma noqoteene hamigiina wuxuu yahay waad naga helaysaane duul hoodana aan adeeqsino hibe naloo siiyey higsigiina wuxuu yahayba waa hooyo oo dege midnima hagaag lehe talow habago aan dayno midnima hagaag lehe yahuud ha u hoggaansamina yahuud ha u hoggaansamina intaasaan leehay وهجاج أبو ربيعة وأسيا هاي قيبي ودبي بنا بحني لو مشينا يوم سيدا وحوي ضدك مجالا دكنا يوسف جيدان أما جودها شعب الصومالية ضمع يهودا أيضا بطك كبيرنا وحنا سوق بالقبيل بنا بحني ميدو قرية شعب الموجود الصومالية والوضع إلى شوفته مركن waxaan soo dhaweynayaa kelimada jeclahay aan siiyo ninka codsanayna soo dhaweysaan waa sheekh maxamed saruur oo markaa ka mid ah culimada Soomaaliyeed sheekha ayaan markaa ku wareejinayaa si kelimadiisa munaasibka ku ah munaasabadan markaa laga soo jeediyo فليتفضل مزير مأجور الشيخ محمد سرور اسمع سرور انت مو شيخ انت مو بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله waxaan aad iyo aad aan ugu mahadinayaa dadka ummadda Soomaaliyeed ee halkan joogta oo culimada Soomaaliyeed hogaaminayaan oo dareenkooda diidada yahuudda inay dhulkeena kala goyso u soo baxay ayaan aad iyo aad ugu mahadinayaa waxa kaloo ku mahadinayaa dawladdeena iyo ummadaha Soomaaliyeed ee kale ee iyagana taageeray ee arrinta meel adag ka istaageen aad baan ugu mahadinayaa yahuud dooni mayno yuhuud dooni mayno marka sidaa darteed walaalayaal culimmadii way sheegeen warka annaga waxaa weeyaan hadda dareenka aan qaadnay oon ognahay waxaan awalba muxuu ahaa waxaan idiin sheegayaa horta oo aan isleeyahay yahuudda waxay dhulkeenna u timid muxuu ahaa ummadda reer falastiin yuhuudda labadii sane ay dhammaynaysay shacabka ugu shucuurta badnaa oo ugu taageerada badnaa ummadda Soomaaliyeed bay ahaayeen kuwaasoo ay culimada Soomaaliya hogaaminayeen ayay ahaayeen dadkii ugu dareenka badnaa ugu taageerada badnaa oo diidaya yahuudda waxay ka samaynaysaa reer Falastiin ay ku samaynayso sidaa darteed ayay yahuudda muxuu ahaa dhulkeenna waxay u soo aaday dareenka iyada ah dareenka isaga oo ummadda Soomaaliyeed ay muujinayso dareenka inay damisay baabiisay waddankeenna u timid ma yeelayna dareenka in la baabiiyo ma yeelayna dareenka inuu baaboo ilaa ay Falastiin xorowdo ma yeelayna dareenka inuu baaboo marka waxaan leenahay yahuud waad kadsoontay ummadda Soomaaliyeed saad u malaynaysa maaha ummad dhulkeeda la qaadan kara maaha ummad la kala goyn kara maaha dadka Soomaaliyeed waa soo jeedaan marka waxaan leeyahay yahuuday waad kadsoontay iskaga laaba wixii aad samaysay adiga ta kale waxaa weeyaan yahuudda walaalaheen dabinkay u hegtay ujeeddadiisoo dhan waxaa weeyaan in la gaaloobo oo yiinta ibraahimiyada ay keentay yahuudda in la qaato oo la gaaloobo oo diimaha la mideeyo haddee madiina islaam mahin baa jirta ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay diinta muxuu ahaa wuxuu noo sheegay inay muxuu ah diinta islaamku un keligeed ay tahay waman yabtaqi hayra islaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi alaakhirati min alkhaasiriin marka sidaa darteed ujeeddada oo dhan waxaa weeya ummadda in Soomaaliya dhulkeeda la qaato in la gaalaysiiyo hadafkaas weeye hadafka waxaan leenahay walaalaheen Somaliland waxaad ka weydeen Soomaali weyn walaalihiinna Soomaali oo muslimka ah oo qiirada badan oo islaamnimada u qiirada badan oo Soomaalinimada jecel oo midnimada jecel waxaad ka weydeen yuhuud oo shirnimo yar ah koox yar ah oo caalamkii oo dhan uu soo tufay waxba ka heli maysaan waxaan leenahay walaalayaal dib u soo laabta islaamnimadiinnii walaalihiinnii u soo laabta ayaan leenahay allahu akbar allahu akbar allahu akbar waxaan ku soo khatimayaa dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay sidaa qiirada aan u muujinayno walaalayaal adduunka maanta wuxuu joogaa adduun quwo xoog wax lagu muquuninaya hadal kaliya wax tari maayo
maalintii la waco dadkeenna waxaa la rabaa maalintii dadkeenna la waco oo in dagaal la galo la doono waa inaan diyaar wada hadanna diyaar ma nahay diyaar ma nahay diyaar ma nahay allahu akbar allahu akbar yuhuud iyo wixii dabada ka wadaba allaha jabiyo ummadda soomaaliya allaha kor yeelo muslimiintooda kor allaha ka yeelo ummadda soomaaliya allaha xoreeyo ummadda reer falastiin allaha xoreeyo وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد ثم يعود جيش محمد ثم يعود خيبر خيبر يا يهود خيبر خيبر يا يهود جيش محمد ثم يعود جيش محمد ثم يعود. وهاك يهود الله جميع صوماليا الله مدايو من نبض صوماليا ومقدس ولما تابتان عندك وصل حد قدرتنا واسكتنا ان شاء الله تعالى الهي ذكيسه وانا كقول يسنينا تبع وحوي وميستها وكلكم حوي ودوني شيخ محمد سرور ايوه وحوي ادو ما سي الموجود الصومالي marka kamida qaybihii u dambeeyay baan ku jiraa markaan waxa laga soo dhaweysaan sheekh Dr. Yusuf Ali Cayte oo markaa ah culimadiinka kamid ah isla markaana ah gudoomiyaha majmaca culimada Soomaaliyeed si kalimadiisa munaasibka halkan way yiraahdo waliya tafadal. Allahu akbar بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. marka ugu horeysa waxaan u mahad celinaynaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed oo culimada ugu horeeyna halka ka soo qayb galay oo maanta baraxdan u taagan inay waxa dhacay ay ka gariiraan oo ka hortagaan oo yiraahdeen bari baan waxaas kana. marka labaad yahuud waa la idinkaga sheekeeyay al-yahuud hum al-yahuud nabiyullaahi muusa dhibeen nabiyullaahi muusa oo nabiga ilaahay dhibeen ma dad kale u naxariisanayaan ya maya waxa weeye yahuud waa dad la nacladay oo ilaahay lacnaday لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ولله وح أي سمينا أيان هرت منكر وح منكر الليلة أي كشقيان معروف والجور كما شقيان منكر كاسير هالي سجيه وادتك كحشو وايه وادجرنا إنسان فلسطين وح أي كردجان تضباطن كون وح كبلن وادنتين بقدر بقول يكونتن كون كبلنا واداوعين noloshoori dhamay waa baabasheen masaajidii waa baabasheen guriyihii waa baabasheen ceelashii waa dulsheen beerihii haddeeray gubayaan war dadka caynkaas miyay idin rabaan ma dadka saasa ayaa heshiis gala ma dadka saasa Falastiin idinkaga sokeeya maya wallaahi alladii laa ilaaha ghayru waxay idinka necab yihiin wax kasta ay idinka necab yihiin mar haddaad leedihiin laa ilaaha illa allah muxammadan rasuulullah waxa fahmay oo nimanka waxa ay yihiin fahmay nabiga jooga calayhi salaatu wasalaam ayuu nabiga aw sheegay waagi oo joogay nabiga calayhi salaatu wasalaam oo yahuudi bergi Madiina ay khiyaanada sameeyeen khiyaanada markay sameeyeen heshiisa lagu jiro heshiiskay ka baxeen bilgoor khiyaanay ka sameeyeen markay ka baxeen heshiiskii dadkoori waa weynaaya la soo qabtay oo dagaal galeenka ah aruurteena waa la iska daayay markii la soo qabtay saa loo xukumaha la yiri xukunkeedu muxuu yahay war dadkan xukunkeedu muxuu yahay nabi maxamed qayaana nabiga calayhi salaatu wasalaam min saxaabiya oo nu maleynaa inuu Sa'd bin Mu'adh Sa'd bin Ubaada ama Sa'd bin Mu'adh mid ka wahay min saxaabiya oo jiranay oo markaa yani xoogaa dhib qabay oo yiri ninkaas hala keeno ninkii yaa la keeno ninkaana xukumaha yiri waxa ay astaahilaan dadkan xirxiran oo dagaal galeenka ninkii waxa la yiraahdo nabi yawma idibta ma idibta ina xukumaha intoor dagaal galeerana hal laayo
carruurta iyo haweenkana ha laga qafaashiyo intaas markuu xukmiyey nabiga calayhi salaatu wasalaam kelimad cajiiba uu yidhi wuxuu yidhi laqad xakamta xukma almelik min fawqi sabcati arqucatin waxaad xakuntay ilaahayga boqorkaa xakunkiisiyaad ku riday yah dadkaas waa horta dadka marka wax meel nooga bannaan lama arko midnimo ayaa noo bannaan walaaltinimo ayaa maanta noo furan walaalaha qaldamay ee waxaa sameeyey waxaan leenaha ka soo leexda ka soo hera diin iyo adduun midna idinma haayaan war gabartii hinda rajab ee diflada ahayd ee la ximbaarsanay iyo waalidkeedii nimanka taangi la dhacay ee inta dadka kala leedeen ayadii ay booyeyso laga badbaadi waayey war ma adinka idin badbaadiye war waxa caynkaasa diida isku dhaba maahin isku meel uma soconno waxaa waaye shayaadiinu linsi waljinni waaye lacanahum allaahu wasalaamu calaykum waraxmat ullah aad buu mahadsan yahay doctor yuusuf cali caynje waa gudoomiye ku-xigeenka waxa weeye golaha midowda golayaasha culimada soomaaliyeed aad buu mahadsan yahay kelimadaasi dabcan haddii aynu intaasi kaga gudubno markan kelimadii waxa weeye khitaamka maadaama in badan la taagay ana dadku ay daaleen oo qorax badan ay jirto kelimadii waxa weeye gabagabada ama gunaanudka bayaan rasmi ah oo waxa weeye oo ay culimadu halkan waxa weeye ay mudaaharaadkan iyo banaanbaxan iyo yahuudda laga soo jeedo ku aadan halkan ka soo jeedinayaan waxaana bayaankaasi soo jeedinaya fadiilada sheekh cali maxamuud xasan oo loo yaqaano sheekh cali wajiis oo markaa culimaa diinka soomaaliyeed markaa ka mid ah fadiilada sheekh ahlan wasahlan kusoo dhawow بيانك طبعا وحوقوبة هي اللغة العربية إن شاء الله تعالى قدو بيانك الدكسة حو بيانك عبد الفورين كيكليا صح بيانك الأخير بيانك رسمي عن المدى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين بيانك أنت أنا أخرين وحان ربا إن لبا كلمة كهر مرصدو كلمة كوباد وحواي سيدا دكتين ولا لها سومالي لان هذا لوكاس جري هذا وحال ليه كرا سومالي لان لما معمولا هذا كجرا ودكتين maamulka hargeysa fadhigiisu yahay iyo maamulka laascaanood fadhigiisu yahay marka waxaa hadda magaca saxda ah oo la dhihi kara waxa waaye walaalaha Soomaali galbeed ama Soomaalida waqooyi galbeed ee qiimaha badan oo runtii dadka Soomaaliyeed taariikh fiican dalka Soomaaliyeed kule dawladnimada Soomaaliya kule 1960kii midnimadii Soomaaliya inay waqooyi koonfur midoodo lafdhabar u ahaa dalka 30 sano dawlad ka jirtay xilligaas 60 ilaa 90kii dawladdaas tiirarkeeda kamid ahaa madaxweyne ku-xigeenada ku jiray golaha wasiirada ku jira dhammaan maraafiqda dawladda diblomaasiyadda ku jiray markii burburku dhacana deegaankooda oo deegaanada ugu nabad badan oo ay nabadeeyeen oo loo qixi jiray oo Soomaalidu maaragtay ay yani u baxsatay waxa waaye wax kasta oo ixtiraama oo qiimeeyna ay ka mudan yihiin ummadda Soomaaliyeed wax cadaawad ah oo loo haayo haba yaraateena ma jirto dawladnimada Soomaaliyana waxbay ka leeyihiin waxbay ka soo dhisteen dawladdii 1960kii la aqoonsaday aqoonsigeedii bay wax ka leeyihiin aqoonsi cusubay maanta yuhuud uga baahan yihiin ma jirto tii dawladdii Soomaaliya ayay wax ka leeyihiin waxbay ka hoggaansan karaan hadda way ku jiraan madaxweyne Cirro wuxuu awoodi kariyaa inuu inta xamar yimaado u tartamo kursiga dalka ugu sarreeya madaxweyne ka noqdo ama ka labaado ra'iisul wasaaraha fulintana ugu sarreeya uu noqdo wax u diidaya ma jiraan marka horta waxaan rabnaa in la ogaado mudaaharaadkan cinwaankiisu ma ahan cadaawad loo haayo walaalaha waqooyi galbeed ku nool maaragtay reer waqooyiga ah ee waxa weeyaan badbaado iyo naxariis loo danqanayo ama shafaqo loo qabo khataraha lala damacsan yahay dibindaabooyinka loo dhigaayo ayay culimmada Soomaaliyeed ka xun yihiin
marka midowga golayaasha culimmada Soomaaliyeed mudaaharaadkan oo hogaaminaya culimmadii Soomaaliyeed oo dhan oo jikooyinka iyo maraakista joogana ay garbihooda taagan yihiin waxaan maanta si rasmi halkan ugu iclaanaynaa walaalayaal khataraha yuhuuddu ay xambaarsan tahay iyo ujeeddooyinka ay ka leedahay inay idin yimaadiin oo ictiraaf idinku soo tuuraan beenahoon jirin waa 5 arrimood arrinta koowaad waxa waaye caqiidada faasidka ah oo Abraham Accord ay ku magacaabeen oo diinta islaamka ay rabaan inay kula dagaalamaan ayagoo awoodda reer galbeedka isku halaynaya oo islaamkii ilaahay uu yiri in diin cinda Allah islaam intay bedeleen oo dhammaan wixii yuhuudi iyo nasaara ku saabsanay laga tuuray islaam muslim iyo yuhuudi iyo kristan isku cajiinano hal xab isku ah oo kulligoodna janno wada galaya ama naar wada galaya isku caqiido ah in la abuuro ilaahayna taas agtiisa ma taalo ilaahay agtiisa waxaa taalo diinta islaamka ayaa agtiisa diin daarta jannadana waxaa loogu talagalay mu'miniinta waa daarul muttaqiin yuhuud iyo nasaarana sida shicaarka uu maanta mudaaharaadkan u ahay laa marxaban bihim innahum saalu naar haddaysan soo islaamin oo aysan soo gelin diinta islaamka ayaga iyo nasaaraba waxa weeye waa dhuxlo naareed waayo diinteennu saasay qabtaa qaar badan waa soo islaameen qaarna u rajaynayaan inay soo islaamaan marka macaalimtaas macluum min diin bidaruura oo khilaaf asaan ka taagnayn muslimiinta agteeda ayay rabaan inay bedelaan dadka ku qasbaan taas marka waa khatarta koobaad oo xagga caqiidada iyo diinta ku saabsan waayo waxaan halkaan rabnaa 2 sheekh oo qiimo badan oo arrintaas diideen oo caddeeyeen iyagoo weliba maamulka Soomaaliland aan ka hor imaanin aan wax ka sheegin sheekh maxamed cabdiraxmaan kaariye iyo sheekh maxamed weli sheekh cabdirashiid oo dawladda ay xirtay Soomaaliland maamul ka jira waxaan culimmada Soomaaliyeed halkan ka soo jeedinaynaa baaq caajil ah in labadaas sheekh xorriyadooda la siiyo labadaas sheekh waxay u xiran yihiin ma ahan inay ka hor yimaadaan maamulka Soomaaliland waxay caddeeyeen khatarta yuhuudda caqiidadooda ay xambaarsan tahay waana arrin caqiide ah waan muslimiintu oo isku raacsan tahay arrintaas marka waxaan leenahay maamulka iyo culimmada iyo acyaanta Soomaaliland daqiiqadihii la xiray ilaa maanta waxa loo shaqeeyey oo loo hiiliyey waa yuhuud iyo kufrigeeda ma ahan Soomaaliland looma hiilin islaamna looma hiilin culimmadaas xorriyadooda la siiyo qodobkaasna oo ina caddeeyaan rabay markaana waxaan toos u galeynaa marka 5 qodob koobaad waxa waaye Abraham Accord inay oo diin la'aan inay fidiyaan waa kow waxay u socdaan yuhuud qodobka labaadna waxa waaye Soomaaliya midnimadeeda oo muqaddasa inay kala jarjaraan waliba ku siman maayaan meeshaas meelaha kale tan oo soo gudbayaan laannahum waxay rabaan mar walba inay muslimiinta daciifiyaan Soomaaliya waa mujtamac meel istiraatiijiyad degan ee muslima oo sunni ah 100% oo kamida min ahlu sunna wal jamaa marka lama ogola marka inay israacaan oo awood yeeshaan ay soo laabtaan marka Soomaaliya in la googooyo dawladda Soomaaliya la daciifiyo oo kayaan Soomaaliya aan la arkin ayaa hadafka koobaad u yahay kii kale caqiidadana waa sheegnaa labadaas hadafka saddexaad waxa waaye in walaalaha Falastiin oo shalay maxaan ku iraadalaayay oo 70 ka badan ay dileen oo shahaado insha Allah inda Allah ka noqonayo 200 ka badan ay dhaawaceen dhammaan mumtalakaadkoodii iyo beerahoodii iyo istaaladoodii wax jaamacadoodii kulli guriyooda ay baabiyeen si ay dhulkooda u banaystaan dafal qarbiya iyo Gaza inay soo raraan xoog ku soo raraan ay soo dajiyaan deegaanadeenaas Hargeysa iyo Burca iyo Berbera iyo dhulka lamida inay ku qasab ku keenaan taasna waa arrin aad ogtihiin diin la'aan ah oo qof muslima uusan ogolaan karin qodobka afraad hadafka afraad waxa waaye walaalaha Yemen ee walaalaha dhiigga iyo diinta iyo dirisnimo wadaagno in laga weeraro dhulkaas la rabaa oo dhulkaas nabadgelyada ku naaloonay muddo dheer goob amni darro iyo dagaal laga dhigo oo madaaficda Yemen loo rido Yemen laga soo tuuray lagu burburiyo dhulkaas waana arrin khatar ah waana arrimaha aan ugu danqanayno oo Soomaaliland u ogoleen inay matahaadkaas la geliyo iyo amni darradaas waa meel nabada oo degan oo aad u fiican qodobka shanaad waxa waaye waa qodob walaalaha dadka muslimiinta waa ogtahay waa isku wada masaalix waa isku caqiido waa isku dan walaalaha carbeed iyo walaalaha muslimiinta ah oo wadamada khaliijka Sacuudiga ugu weyn yahay kamid yihiin oo wadamada waaweyn oo islaamka maanta ilaaliyo Turkiga ay kamid tahay oo dawladda Masar oo weyn oo rugcadaaga oo caalamka islaami weligeed sanad u aheeday oo carabta hogaamisa ay kamid tahay ayaa waxaa la rabaa in meeshaas biyo mareenadaas istiraatiijiga ay Baabil Mandab iyo khaliijka Cadan inta loo dego in la cariiriyo oo colaado la geliyo mashruucaasna ugu dambeyn waxaa la rabaa waxa la yiraahdo Israa'iil al-Kubra in la dhiso oo dhulka carabta dhulka islaamka oo dhan mid saas loo jarjaro oo la wada qabsado 5taas arrimood oo khatarta ayaan ka digaynaa marka sidaa daraadeed walaalaha Soomaaliland ama waqooyi galbeed waxaan leenahay walaalayaal meesha wax idin kama jiraan aqligiina inta u laabatiin dawladnimadii Soomaaliyana waxbaad ka leedihiin kaalaya wax ka qaata oo xisaabtiina ku qaata oo maamulka idin dhisan asagoo sidiisa oo idinku fargelin
وهذه 60 مدة قرن كأول حيث ومدة كده حيثنا وحكيه جامية أنت مركان كصوتنا بيان كتوسو آخرنا إن شاء الله بيان صحفي لاتحاد مجالس علماء الصومال بشأن رفض اعتراف كيان إسرائيل المزعوم لحكومة الشمال الغربي في الصومال. بيان كاسو عنوان كيسو كاسو هاي قال الله تعالى الله وحويري ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار هو إيرانينا كوا ظالمين ظلم قال ماذا لقوا كفارته أو مركز نارو أيدين تابتو وما لكم من دون الله من أولياء إلهي سكري سنة واحد عد إذين هي اللي ما قرب قاشين قتهي لي مدونتين ثم لا تنصرون من الذين قرار دونه وسورة داود بقول 8 سدح آيات داسو انطلاقا من المسؤولية الشرعية والوطنية يؤكد علماء الصومال بمختلف تجمعاتهم وروابطهم ما يلي أولا إن وحدة الصومال مبدأ راسخ لا يقبل المساس به ويجمع عليه علماء البلاد كافة ويؤكدون أن أي محاولات يائسة تستهدف تقسيم الصومال بما في ذلك التدخلات الخارجية هي محاولات مرفوضة ولا تستند إلى أي أساس قانوني وتخالف المواثيق والقوانين الدولية. ثانيا يقف علماء الصومال صفا واحدا إلى جانب الدولة الصومالية الشرعية في مناهضتها لكل مشاريع التقسيم ويشددون على أن أقاليم الشمال الغربي جزء أصيل من أرض الوطن جمهورية الصومال التي توحدت عام 1960 وإن الخلافات السياسية ينبغي حلها عبر الحوار الوطني الشامل وعلى طاولة مستديرة بعيدا عن أي مسارات تفتح الباب للتدخلات الخارجية أو تمس من وحدة البلاد وسيادتها. ثالثا يتقدم علماء الصومال بخالص الشكر والتقدير لكل الدول التي ساندت وحدة الصومال وحفظت للصومال سيادتها وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية وجمهورية تركيا وجمهورية جيبوتي ودولة قطر وجمهورية الشقيقة. كل هذه الدول طبعا 5 دول شقيقة وجمهورية الصين الشعبية الصديقة إلى جانب سائر الدول الشقيقة والصديقة التي وقفت مع الشرعية ورفضت صراحة أي محاولات التقسيم للصومال. رابعا يرى مجلس علماء الصومال إن التدخل الإسرائيلي في الشأن الصومالي وما يثار حول السيطرة على ميناء بربرة الاستراتيجي يهدف بالأساس إلى التحكم في الممرات المائية الحيوية الاستراتيجية وفي مقدمتها خليج عدن وباب المندب. ويؤكد العلماء ضرورة اطلاع الدول العربية والإسلامية المؤثرة بدورها لإفشال هذه المخططات الخطيرة وذلك عبر تقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري للصومال وبما ينسجم مع القوانين الدولية لتعزيز قدرة الدولة الصومالية على بسط سلطتها ونفوذها على كامل التراب الوطني. خامسا يرى المجلس أن اتخاذ إسرائيل جزءا من الصومال منطلقا لغزو بلد عربي مسلم كاليمن أو اتخاذه موضعا لتهجير الفلسطينيين إليه قسرا كل ذلك من المحرمات شرعا ولا تقبله الشريعة الإسلامية ولا الدستور الصومالي ولا القوانين الدولية. سادسا يرفض المجلس بشكل قاطع أي ارتباط بما يسمى باتفاقيات أبراهام لما تحمله من تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وتعارضها الصريح مع العقيدة الإسلامية السمحة وموقف الأمة الإسلامية من قضية فلسطين وبيت المقدس مع الاحتلال وتعارضها الصريح مع العقيدة الإسلامية وموقف الأمة من فلسطين وبيت المقدس. نعم. سابعا يوصي المجلس كافة القيادات السياسية والاجتماعية والدينية في الصومال أن يوحدوا صفوفهم لإفشال هذا التدخل السافر الإجرامي للصهاينة وأذنابهم في المنطقة ووضع الخلافات الداخلية السياسية والعشائرية والحزبية جانبا والوقوف صفا واحدا لإنقاذ البلاد وسيادتها ووحدتها. ثامنا وهو الأخير يدعو العلماء الحكومة الصومالية
إلى تهيئة الأجواء المناسبة لإطلاق حوار وطني شامل بين جميع الفرقاء بالتعاون مع إحدى الدول الرائدة في المنطقة. يقترح العلماء أن المملكة العربية السعودية هي البلد الأنسب لما تتمتع به من مكانة متميزة وثقل سياسي وقبول واسع، وكونها تحتضن الحرمين الشريفين، ولدى أبناء الشعب الصومالي كافة بما في ذلك قيادات أقاليم الشمال الغربي تقدير عظيم لهذا البلد العزيز، والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر. إسرائيل هدعوا، يهود هدعوا، يهود الله يجبيه، صوماليا الله بذايب، من ديو أيام الله، يهود هدعوا.